سلام الله عليكم في نمونك سنة خيارتنا ملك استوى جوكتان كسود وهذا حبينت كوادي أخبار بالجملة وركي وجدا بيدوني كبدا عكتين ويجي دونا فلان قيمه كل مدى العيارية كسو قادن دونا أبديت كيس سوق كليب سيجي شكوين وحساب بدنا دعوة عن نيمار أو سيجي دونا طبعا كل مدى كلا إكهار جروب يدا نك أوت كوا سيد حالة ديسا قطر ودول كلوها في سمر كانا ما أنت وفرحة دي أفريقيا آد ماشي ليجا سرو ديك ليجا مهلي فرحة درتد وحبضن بان idin haya ku soo dhawaada barnaamijkeena hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share garan saxibadina la wadaaga dhamaantiinba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantihiin aad ugu xirantiin barteena fadlan booqo kooxda.com waxaad ka heli karaysaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo dukaanka smartphone-ada lagu iibiyo ee Zack Smartphones aanu ku bilownay maanta aroornimadii baan idin sheegay waxaan idin yiri maanta waa maalintii Afrika waa guushii ugu horeysay Afrika saaka baan idin sheegay markaas anigu waxaan idin qadaray meel kale ilaahay waxa idin kaga saalo laakiin maanta tan anaga nagama badna ma maqli jirtay wixii adiga ka bato u noo keena de waa taageernay darad markii Netherlands iyo Ecuador wajahayeen Netherlands waan taageeri doonaa laakiin Afrika markay timaado dhiig waxa waaye biyo maaha sidaas daraadeed maanta waxaan wada ahayn Afrika ayaa gaartay guushii ugu horeysay macnaha Senegal waxay ka dhignayd inay gaareen guushii ugu horeysay iyo waliba xul Afrikaan oo ka qayb galaya tartankan waa guushii ugu horeysay oo ka soo hooyay markaasi kuwii kale meelaha carabtii kale xataa Afrikada nala sheeganaysay meelaha kufkufeeyagu laakiin geesiyadii Afrika waxay noqdeen markaasi ragga cajiibka unbelievable-ka ee aan la loodin karin xulka qaranka wadanka Senegal ayaa ku guuleystay inay hafiyaan xulka qaranka ee wadankaasi Qatar 3 gool ayaa lagu jiiday ciyaar xiiso badnayd oo lagu qabtay garoonka weyn ee caalamiga taqaanaan ee Al Thumama 41,000 oo ruux oo taageerayaal ba fadhiyay markaan Antonio Mateo u dhashay Spain ayaa markaasi garsooriye Madridista ayaa markaasi ciyaarta maamulay naad loo garanayo Dia ayaa goolkooda 41 daqiiqo qalad markaasi mid kamid ah xidigaha xulka qaranka wadanka Qatar uu galay shab uga siiyay markaasi unbelievable ay ahayd kubadaasi oo marqura ayaa qaarado isqabsatay la dabaaldegay la farxay la weyneeyay munaasabad cajiib ay ahayd aad baa loo farxayo waliba xitaa markaa dhadhankeedu aad buu macaana inta wixii ka dambeeyay waxa iyagu isku dayna soo barbarayaan laakiin waa loo celiyay markaasi 48 daqiiqaba taasoo keentay markaasi rajadoodu in xoog mugdi ay noqoto Montari wuxuu noqonayaa laacibkii ugu horeeyay ee Qadari ah ama goolkii ugu horeeyay Qatar koobka adduunka ka dhaliso iyagu markan baa ugu horeeyaba waana xulkii ugu horeeyay ee wiligiis aan u soo bixin ee ka qayb galay tartanka isla markaana ninkan ayaa goolkiisa ugu horeeyay isagu dhalinay sidaas daraadeed goolka waxay ciyaarta ka yeeshay xogaa rajaba yeeshan laakiin waa la dilay rajadoodiyo ninkii Dian dalaq gool kale ka siiyay sidaas baa marka rajadii carabtu lagu tiray markaasi waxaan anaga naga badnayn bay noo soo raadinayaan meelihiina wax kale ka raadsada laakiin guushan Afrika kama badna Afrika tan baba niyada ku dhisanaynay markaas bay soo haminayaan marka xulkan markaas xul dhan oo tartanka martigelinaya in qaabka guuldaraa iyagu ay laba kulan oo guuldaraa iyo gurubyada ay kala kulmaan waa markii ugu horeysay baa xulka Qatar waxay noqonaysaa xulkii ugu horeeyay isagoo martigelinay tartanka labadiisa kulan ugu horeeyay gurubyada dhagrag la siiyo la garaaco taariikhda murugada leh baa markaa qabsanaysa maxaan ku galnaahay anaga tan nagama badno oraan kugu sheegay markaasi marka qadariintii isku dayay lahaayeen laakiin Senegalesku maanta waxa way farxadeeda lama qiyaasi kara aniga marka hambalyo reer Afrika guushan waa guul Afrikaanko dhanba Qatar muslim hada daraftii muslim waa kan Senegal meeqa muslim baa joogta waliba xitaa dhiigaaga kula madow marka nin cadma maxaa kuwana kaaga sokayaba markaasi hadaba hambalyoon leenahay war ciyaar kale baa dhacday markaasi ciyaartii kale cajiibka ahayd waxay ahayd tii dhexmartay Iran iyo waliba Wales Iran iyaguna waa la taageeray maadaama xul kale oo Aasiyan iyagu ay ahaayeen dhagaha bay ka garaaceen markaasi seeway war wala soo jeestay kubad wala isla bartay Yurubaan ahay iyo baabeentaas waxa wiliga baad sheegi jirtay waxaas iska hilmaan inta la qabsaday gool bay dhaliyeen oo Iraniyiintu waa laga dilay laakiin dhagaha baa laga garaacay markaasi Wales 98 daqiiqo dalaq laga siiyay gool waliba haddana waa loo labeeyay taasoo ka yeeshay markaasi 2 gool iyo waxba ciyaarta waa la dabaaldegay cajiib bayna ahaayeen macnaha goolkan waxa markaasi uu yimid 97 daqiiqo 56 second waa goolkii ugu soo daahida badnaa
isagoo aan ahayn waqtiga extra time-ka isla markaana kii markaas ugu horeeyay buu noqonayaa gool cajiibo taariikhda markaa galaya ilaa iyo markaas laga soo bilaabo 1966 baa la xasuusanaya golahayihii markaas ninkii ugu horeeyay casaan qaatay wuxuu noqday golahayaha Wales Wayne ninkaas oo isagu Wayne Hennessy ninkaas oo isagu la siiyay casaan isla markaana wuxuu noqonayaa golahayihii saddexaad ee koobka dunida casaan ku qaata 94kii golahayihii Talyaaniga Gianluca ayaa sameeyay dabcan South Africa Uruguay ninkii golahaya u ahaa iyo waliba markano Wales oo noqonaya ninkii saddexaad markaasi waliba xitaa officially 2022ka koobka dunida red cardkii ugu horeeyay waxa la siiyay xulka qaranka wadanka baa qaadanaya taariikh buu isagu galaya 2022 goolkii ugu horeeyay outside-ka banaanka laga dhalina Iran baa dhalisay goolkii ugu soo daahida badnaa taariikhda iyagu baa markaa dhalinaya Mahdi Tremina incredible markaasi waxa soo dhanba isaga ka dambeeyay kadib markii casaanka sabab uu ahaayo Tremi taariikhda wuxuu noqonayaa nin kale oo jaanisada markaasi hal kulan Steve Janis buu isagu abuuray ninka Wales markii uu ka hortagay incredible bay noqonaysaa ciyaartiisu humble aan leenahay markaa Wales watch markaas waa xulka warkaasi Wales Bele Iran humble markaas Iran iyaguna waa shaqaysteeno sawa Senegal iyo Iran waa shaqaysteen markaasi haddaba waxa leeyahay ninkii Neymar waa seegi doona tartanka kulamada koobka dunida markaasi wareega guruubyada xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Neymar inuu seegi doono kulamada guruubyada xogta baa la tilmaamaya hadda war soo dhacayo kulul way hadda waa ka soo gaarsiinaya way adigana share gareenta kaliya markaasi doonayna wado meesha iska video koobka ku shuban warkii ugu dambeeyay helaysa dunida ma meel kale baa laga helaya ka helay sidoo kaliya subscribe saaro marka Neymar marka waxa lagu leeyahay kulamada soo aada wareeg guruubyada waa seegi doona sida kelmadu macna u leedahay marka warkaasi weyna waa ka Luis Enrique war buu keenay wuxuu yiri wiilasheediyo gabdhihiina waad la seexan kartaan habeenkii ku yaaca waa ogolaaday laakiin wuxuu yiri habeenka aad ciyaar leedihiin biri oo kala caawa isugu dhawaanna laakiin gabdhihiina waa loo fasax markii Spain waxa la yiri ku yaaca markaasi oo sawa Ferran Torres gabadhii Enrique buu qabaa oo saaxiibiin sawa gabar kale sawa ma gabadhiisii marka Enrique waa ogolaaday gabadheedii oo leeyahay gabadha waa laga yaabaa inay tiraahdo abo aan cuuriyaamin iimaanka Allah ka qaaday haddaba tabara xulka qaranka wadanka Ghana waxa uu leeyahay Ronaldo goolkii uu naga dhaliyay wuxuu ahaa hadiyad ka timid garsoorka maxkamad baan la tiigsanayna ma yeeli doono anagu warka bay tilmaamayaan cid waa soo jeestay markaas wuxuu leeyahay anagu waxaan wax qaadan karna ma wax la sheegi karayna ma sidan wax laga bedelo marka reer Ghana warkaas bay keeneen waxay leeyihiin waxaan wax la aqbali karmayno san wax laga bedelo markaasi waliba xitaa Ronaldo ayaa la arkayo isagoo markaasi buumadii hoos gacanta uga deystay habeenkii xalay toole ee wax ka soo baxsanay cunay ali rizawa macooskiisii buu cunaya ma ahayn waaba buumo hoos jabba ugu yaala baa leeyiri oo marka wax uu kala soo baxay uu ku cunay marka Cristiano isaguna waa ka waliba xitaa waan arki doonaa waxa leeyahay shaxdii ugu fiicneed waxa loo doortay ee wareega lugta koowaad ee wareegada waxa loo doortay Godin oo iyo waliba marka Shaw iyo Hakimi iyo Ocha iyo Gavi iyo Bellingham iyo Fernandes iyo Saka iyo Richarlison iyo Giroud shaxku foolxumo badan reer marka Ingiriis cadaalad daradoodan ba ka yaabay meelahay marka Shaw la wareegayaan haddaba waan arki doonaayo waxa lagu leeyahay Jurgen Klopp ayaa isagu doonaya inuu keeno Adrien Rabiot iimaanka maxaan ka iraahdaa Adrien Rabiot buu raadinaya baa Liverpool macallinkii markaas Liverpool Klopp adiga dad Liverpool taageerto ogaay waxa qarastaada waa ku kacaysa laakiin anigu ku sheegino odaga baa sheegay leeyahay ninkii Klopp baa warka wata Chamberlain baa ku bedelay baa leeyahay mayd ma ku bedelaysa adiga wax nool ma taradsadaan marka waan arki doonaa reer Liverpool meelaha waa raadiye marka wax lagu kala tagay ninkii markaasi wakiilka xidiga lagu magacaabo Pedri ayaa isagu wuxuu sheegay inay tahay Asensio inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona meel kale raadin wuxuu yiri iimaanka Allah ka qaaday meeshaas tag meel lagu noolaaday Barcelona ka jirtay maxaad meelaha la wareegaysaa ninka sidaas buu isagu ku leeyahay tag buu yiri meelaha wareegina iimaanka beele marka saas buu leeyahay waan arki doonaa hadii marka la iska yeelay hadii kale marka waa ka Memphis Depay waxa leeyahay nadiif kubadda cagta Manchester United ayaa loo soo bandhigay oo la yiri ninkan qaata iyaguna diyaar oo January waxa leeyahay waa qaadan doonano ninka heshiiskiisa waa la kala tuuraya waana keensanaya kooxda kubadda cagta ee marka Manchester United wiilka bay soo qaadan doontaa sida kelmadu macno u leedahay xogii ugu dambeeyay sidaas bay tilmaamayeen Depay waxa leeyahay nadiif kubadda cagta United baa qaadan doonta rajadu marka muuxuma baa leeyahay United Emma sheekada ku saabsan Harry Maguire baan ku hayaa Harry Maguire waxa uu ka hadlayaa ninkii Cristiano Ronaldo maadaama isku koox ay hayeen wuxuu leeyahay ninka Cristiano waa nin tagay oo cajiib ah oo unbelievable marka la eego ninka wuxuu yiri nin taariikho marka mid kamid ugu fiicnaa kubadda cagta ayaan u arkaa buu yiri anigu waxba laga ma sheegi karo buu leeyahay waa difaacaya markaasi Mr Madaxi Emma ninkii Krager wuxuu yiri
qaracan baa dareemaya buu yiri markii ninkii Julian Ward ahaa uu shaqadii ka tagay kooxda kubadda cagta Liverpool uu sheegay inuu ka tagi doono xilciyaareedka dhamaadkiisa ma joogay buu yiri Julian Ward marka wadna xanuun baa ku bilowday kuwana waxay yiraahdeen maxaa tee masiibada ka socota marka waan arki doonaa xoogihii ugu dambeeyay kuwan bay ahaayeen ima kulankii xisaab badnaa Netherlands iyo ay ciyaareen maxaa ka cusub markana waxaan aadi doonaa xulka qaranka wadankaasi Holland iyo waliba Ecuador ciyaartii xisaab badneed isla markaana groupka kulamadoodii labaad ayaa markaas iyagu ciyaarayaan maadaama kulamadii koowaad ay soo gabagaboobeen maantana si rasmi ah loo baasay kulamada labaad dabcan Qatar iyo Iran iyo Wales iyo haday ciyaareen kuwana markaas kulankoodii labaad ay ciyaarayeen ciyaar xisaab badan bay ahayd marka la eego Holland waxa laga sugayay in kulankan bal ay markaas soo bandhigto xuduudeeda si loo eego maadaama xul adag oo madax adag oo caniid ah oo Ecuador la yiraahdo fooda loo galiyay dabcan kulanku wuxuu ahaa mid aad u xiiso badnaa Ecuador iyo waliba Netherlands marka la eego aad baa la isugu daalay mana sahlanayn dabcan groupku wuxuu noqonayaa mid aad u qasan macnaha Senegal rajadeedu aad bay u fiicnaanaysaa waqti xaadirkan sababtoo ah طبعا وقتي هو waxaanu lahayn qadar way macsalaameysay xulkii ugu horeeyay tartanka macsalaameysay buu noqonayaa laakiin natiijada marka in 4 gool ama 4 dhibic marka ay lahaadaan Ecuador iyo waliba Netherlands iyo Senegal oo 3 dhibic leh waxay keenaysaa markaasi cabsi hor leh oo markaasi xul kasta inuu seey karayo Netherlands ba amaan ku jirin Ecuador ba amaan ku jirin iyo waliba markaasi Senegal طبعا Senegal kulanka soo aadan waxay la ciyaari doonaa Ecuador haddii qadar ay ku guuleysato inay joojiso Netherlands oo waxay iska adagtaa ama mustaxiil u ag markaasi yani waxay noqonaysaa mid markaasi wax badan ay isbedeli karayaan sababtoo ah kulankii maanta qadar waxay gashay markaasi guuldaro ayaa la siiyay laakiin Netherlands ayaa barbara gashay oo gool lagu celiyay natiijadaasi waxayna siinaysaa markaasi in groupkooda maanta iyagu ay hogaamiyaan oo 4 dhibic ay leeyihiin sidoo kale laba gool bay haystaan labadaasi gool ay haystaan sidoo kale waxay ka hortagayaan Ecuador oo iyaguna 2 gool leh isla markaana 3 gool bay dhaliyeen mid baa laga dhaliyay labada xulba waliba xitaa markaasi min 4 dhibic bay leeyihiin waa sax iyagu in loo eegi doono ciyaar wanaaga iyo calaamadaha iyo la fiirin doona jaaliya casaan laakiin waqti xaadirka iyaga hogaaminaya kulanka ugu dambeeya Ecuador haddii Senegal ay ku guuleystay Ecuador inay garaacdo afarteeda bay fadhin doontaa oo waliba qadar ay soo garaacdo Netherlands waxay noqon doontaa wax mustaxiil oo mucjiso markaas Ecuador iyo waliba markaa waxaan tartanka ciyaari doona Ecuador iyo waliba markaas Senegal waa haddii la garaaco baan ka hadlayaa wuxuu u baahnaan doontaa kulanka soo aadan Senegal gool fara badan inay dhaliso xitaa haddii markaa ay ciyaarayso oo ay guuleysto 6 dhibic horto waa ay gool qaaliya bay gaari doontaa sababtoo kuwan barbara bay galeen 4 dhibic bay leeyihiin Ecuador hadday garaacaan Senegal iyaga soo bixi doona kulanka soo aadan oo 6 dhibic bay iyagu iman doonaan qadarna xitaa hadday soo badiso iyagu markaas dhib badan 3 dhibic bay imanayaan mar walba qadar iyagu way harayaan oo tartanka way macsalaameeyeen sababtoo ah Ecuadorna waxay haystaa markaasi 4 dhibic midka kalena Netherlands waxay haystaan 4 dhibic markaasi haddaba bilowgii hore marka la eego qaybtii hore gool bay dhaliyeen xulka Netherlands goolkaasi wuxuu ahaa mid natiijada furay Gagbo ayaa dhaliyay aad buuna u qurux badnaa marka la eego Klaasen baa caawiyay 6 daqiiqo waxa la islahaa Mahrejaan bay iyagu sameynayaan gool fara badan bay dhalinayaan laakiin maxaa la dhalinayaa kubad falxun bay meelaha la yimaadeen gadaal inay u noqdaan isla markaana waxaad aragtay cududii ajiibka ahayd ee ritmiga ciyaarta iyo qaabkay u ciyaareen awoodooda jiraaneed iyo sida ciyaarta sare ugu qaadeen xulka qaranka wadanka Ecuador iyo cadaadiska ay sameynayeen waxa indha daraandar la isla markaana Holland indhaha ka duugay waa bus oo kale miyaa ku kacda baa leeyahay indhihii baa laga duugay xulka qaranka wadankaasi Holland gool lagaga barbareeyo aad buu qurux badnaa waliba xitaa waxa jiray fursado kale bay heleen oo xitaa aysan u suuragelin inay dhaliyaan xulka qaranka Ecuador haddaba groupkan sheekadiisu ma sahlanaan doonto Valencia ayaa goolkii saddexaad isagu dhalinaya koobka dunida 2 gool qadar buu ka soo dhaliyay midna wuxuu ka dhalinayaa marka Holland halka Gagbo 2 gool isagu dhaliyay markaasi qadka dhex xulka qaranka wadanka Holland waxa uu ahaa mid masbaas badan iyagu luminayay isla markaana 10 daqiiqo ugu hore ciyaarta cajiib ay ahaayeen laakiin taa wixii ka dambeeyay la Dion wala Tron markaasi Kubneris ayaan markaa fiicnaan intuba aad bay u liitay markaasi marka barbarahaasi kulanka ugu dambeeyay baan arki doonaa ninkii Van Gaal ahaa kubad qurux badan oo Holland u qalanta ma uusan soo bandhigin marka baryahan madowgaaba ma aragtay ka socodaya halka iyo waliba markaasi Van Dijk iyo tolkiisii